dagaalo isdaba joog oo bilii la soo dhaafay ilaa 3 November ka dhacay degmada Bacadweyne iyo deegaano hoos yimaada oo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa waxay bulshada ku dhaqan degmada Xaraale tacsi u direen ehelada ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka iyo dhammaan shacabka reer Bacadweyne sidoo kale waxay baaq u direen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug Xaraale hadaan odayaal nahay hadaan mas'uuliyiin nahay hadaan waxgarad nahay hadaan dhalinyaro nahay waxaan tacsi tiiraanyale u diraynaa dadka Bacadweyne khawaarijtu sida foosha xun dhaca iyo xasuuqa ugu geysatay aad iyo aad baan arinta uga xunnahay waa uga tacsiyeynaa walaalaha iyaga jooga Bacadweyne ilaahay waxaan u baryaynaa wixii ka dhintay samir iyo iimaan ilaahay inuu ka siiyo wixii laga qaatay qalab yar bay ahayn qalabkaas waa la helayaa dhibaatadaas aad bay ugu soo noqnoqotay qabiil baan nahay aad baa arintaas noo xanuujinaysaa insha Allah wixii qayb oo ka qaadan karnana waa ka qaadan doonaa waxaan baaq u dirhayaa ummadda Soomaaliyeed oo deegaanka la ah nimankaas oo ku fiirsanaya nimanka khawaarijta har iyo hamin isaga soo noqonaya waxaan tacsi tiiraanyale halkaan uga dirayaa walaalahana reer Bacadweyne ee xasuuqa iyo gaadmada dadka cawaanta ee argagixisada ugu geysteen Bacadweyne waxaan kala dardaarmayaa hadda kadib wax dawlad la yiraahdo oo ay isku haleeyaan inaysan jirin ay ka digtoonaadaan cadawga dhagartiisa haddana fallaahi alxamdu الرحمن الرحيم صلى الله على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باغان waxaan u direynaa baaq saxaafadeedkan annagoo ka soo direynaa degmada Xaraale waxaan u direynaa dagaalkii ka dhacay Bacadweyne intii dhimatay Allah u naxariisto annagoo ka tiiraanyoonayna in degmada Bacadweyne weerar kala duwan oo magacyo kala duwan lagu ataagayo aysan dawladda u gurmadayn oo maamul goboleedka Galmudug u gurmadayn waa arin tiiraanyadeeda leh oo labaad halkan waxa baa uga direynaa marka maamulka Galmudug inuu degmada Bacadweyne u gurmado ciidan iyo calafba la gaarsiiyo shacabka degmada Bacadweyne oo la dhacaya halaadahaas iyo dagaalahaas ay ku soo qaadahay dadka maamulada Soomaaliya u haya baaq waxaan ugu direynaa dadkaas cadawgii Soomaali wada dhibahayay yaa gaar u qabsaday waxa muuqata in lagu dayacay baa muuqata dadkaas waxaan codsanaynaa gargaar loo fidiyo ummadda Soomaaliyeed oo deriska la ah oo u dhow iyo wax ka fogba meelay joogaanba cadawga Soomaaliyeed inaan gaar loogu fiirsan yaan codsanaynaa gacanha laga siiyo hal looga gargaaro hal looga tacsiyeeyo intaasaan soo jeedinaynaa dawladda federaalka dawladda Galmudug xukuumadda taxtigooda ay ka dhacday arintaasi dadaal badan ha u sameeyeen saasaan ka codsanaynaa dadka il muslim ha lagu dhigto il Soomaalinimo ha lagu dhigto il waxqabad ha lagu dhigto cadawgiiba ayaga khaas u laayay ayaguna wax waa ka qabteen oo way iska celiyeen taageeray u baahan yihiin waxa ka maqan taageeradii iyo hiilkii Soomaaliyeed baa ka maqan sidaasana warka ku soo dhaweynaa wasaaradda sallim meeshaan waxaan tacsi uga dirayaa anoo kamid ah nabadoonnada Xaraale anoo kamid ah waxaan tacsi u dirayaa walaalaha reer Bacadweyne oo khawaarijtu xasuuqday baan tacsi ugu dirayaa ilaahay inuu barkaliira wixii dhintana naxariis iyo nabadgelyo ilaahay inuu siiyo waxaan u bogaadinayaa dawladda federaalka iyo Galmudugba waxaan leeyahay dadka meesha lagu xasuuqay hubkoodii la qaatay waa iyaga la laayay u gurmada idinka dalka dawladka ah